السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسو دوادا bahda xirfad kaab oo aad mar walba uga barateen koorsooyino iyo barnaamijyo runtii la xiriira sida qofku uu u aasaasi lahaa xirfad cusub amaba uu ganacsiga isbedel ooga samayn lahaa ama ganacsi alifka u samayn lahaa oo fikrado iyo naqshado badan u aruurin lahaa iyo barnaamijyada la xiriira sidoo kale teknolojiyadda iyo maamulka iyo hoggaanka sirta nolosha intaas waxay ahaayeen guud ahaan qaybaha guud marka insha Allah hadii ay yiraahdo koorsada tan waxaan ku baran doonaa hadii Ilaahay yiraahdo HTML ka marka waxa la isweydiinayaa waxa uu noqonayo ama inaga caawin karayo HTML ku waa wax runtii muhiimad gaar ah u leh qof walba oo doonaya inuu wax ka barto cilmiga IT-ga ama computer science ama ICT nooca rabtidba baro hadaa rabtid laakiin cilmigaas waa qayb weyn ayuu runtii ka yahay ama koorsada tan ka tahay siiba gaar ahaan HTML ku wuxuu si gaar ah u sii anfacayaa qofka doonaya inuu barto waxa la yiraahdo web development marka koorsada tan runtii web development-ga ayay qayb ka tahay qofku si uu u noqdo web developer wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan inuu barto waxyaabaha badan oo uu baranayo ayay koorsadani qayb weyn ka tahay example qofku marka uu doonayo web developer maxay tahay web developer-ku waa shaqo la qabto ama xirfad la qabto xirfadaas shaqadeedu waa maxay qofkaasi waa professional web developer wuxuu develop gareeyaa ama sameeyaa website-yada kala duwan waa aragteen hadda maartay bbc.com xirfadkaab.com sahluniversity.com dhammaan maaragtay waxyaabaha noocaas oo kala maaragtay ama idaacadaha kala duwan hebelka.com ama .org ha noqoto ama .echo ha noqoto ama maxaa yiraahdaa .so ha noqoto wuxuu rabaa ha noqdee website-yada kala duwan ee adduunka laga isticmaalayo waad la socotaan dhamaantood waxa weeye waa website-yo la diyaarshay runtiina shaqadaasi markaa waxa diyaarsha web developers-ka ayaa diyaarsha oo website-yada sameeya marka web developers-ku somehow programmers-ka way ka duwan yihiin waa iyada laftirkeeda xirfad gaar ah sida qofku programmer-ku xirfad gaar ah uu u noqon karo web developer-ka si guud hadaynu ka sheekayno qofku yani web developer hadduu noqdo muxuu ku shaqayn karaa muxuu heli karaa web developer-ku runtii waxa laga heli karo waa wax maaragtay qofka Ilaahay soo hadba u siinayo laakiin waa xirfad runtii furan oo runtii qofku uu lacag fiican ka samayn karayo example qofka waxaynu dhihi karnaa laba qaab qofku uga shaqayn karaa web developer-ka inuu freelancer noqdo oo asagoo website-yada iyo wixii la midkaas sameeyo iyo in maaragtay uu meel ka shaqeeyo hadaa meel ka shaqaynaysid oo shaqaale noqonaysid 500 iyo 600 wax laga inaa qaadatid oo noqotid taana waa qaab waxa kale oo jirta support taas inta badan support aan buu shaqaynayaa waxa kale oo jira qofku inuu asagu maartay launch gareysto meel yar oo maartay markaana website-yada u sameeyo example halkii website hadda Soomaaliya markaynu joogno waxa lagu sameeyaa lacagta u dhaxaysa $500 ilaa iyo 1000 ilaa iyo ka badan macnaha hadda meelo waaweyn baa jira oo 3000 iyo ka badan ku siin kara waxay ku xiran tahay organization yar 500 baa ku weyn organization dhexe $1000 organization sare 3000 marka waxaan ka hadlayno waxa weeye waa hal website oo aad samaysay oo asbuuc ama 5 bari ama 6 bari aad ku diyaarisay ayaa inta lacagta inta la eg kaaga soo xaroon kartaa runtii qofku markuu xirfadan si dhameystiran u barto wuxuu markaa awood u yeelan karaa inuu xitaa safro oo meelo kala duwan dad kala duwan projectyo kala duwan iyo assignmentyo kala duwan oo runtii qofku uu qaato ayuu maaragtay awood u helayaa waa hagaag marka inta markaynu ka soo tagno xagga lacagta iyo markii laga soo tago qofka kan yani seebu web developer noqon kara web developer-ka dhowr wax ayaa muhiim ah inuu qofku barto dhowrka wax koorsadan waa koorsadii ugu horeysay laakiin koorsooyin dhowr koorso qofku u baahan yahay HTML-ka qofku markuu barto waxa uu kale qofku u baahnaanayaa inuu wax ka barto CSS-ka waxa kale oo u baahnaanaysaa inuu wax ka barato JavaScript waxa kale oo u baahnaanaysaa hadii ay baydmo in aad maaragtay wax ka baratid waxa loo yaqaano PHP waxaad u baahnaanaysaa inaad wax ka baratid MySQL inta hadaa isku baratid waxyaabo kale oo badan way jiraan laakiin at least inta isku baratid sida bootstrap iyo waxyaabo kale oo la mid ah ayaa jira laakiin xigmadu waxay tahay inta hadaa isku baratid waxaad ma aragtay awood u yeelan kartaa inaad noqotid web developer buuxa oo professional ah insha Allah koorsooyinka iyadoo sidaas ah ayaynu mid walba u duubi doonaa koorso walba kadibna waa isku dardarsan doontaa insha Allah saasaad markaa aad web developer insha Allah ku noqon doontaa waxayna ku xiran tahay adiga iyo ka go'naanshahaada ayay ku xiran tahay
akhyaari mar labaad soo dhawaada waa anigoo ah engineer abyad ayaa insha allah haddii ilaah yirahdo koorsatan bixin doona insha allahu waxaan rajaynayaa inaynu wax badan aynu kala faa'iidi doonno haddii ay baydno haddaba qaybtan waxaan ku arki doonaa html overview html maadaamaan kasoo sheekaynay waxaa muhiima inaynu fahanno html-ku wuxuu yahay marka koowaad html waxaa laga soo gaabshay ereyga ah hypertext markup language saas daraaddeed html-ku ma aha programming language laakiin waa maxay waa markup language muhiimaduna waxa weeye waa luqad loogu talagalay in website-yada lagu qoro website-yada kala duwan oo adduunka ayaa lagu qoraa website walba oo adduunka ka samaysan html ayuu maaragtay fahmaa oo dhammaan browserska aad arkaysaan sida Mozilla Firefox Google Chrome dhammaantood waxa weeye Internet Explorer Microsoft Edge kulligood waxay ku shaqeeyaan maxay waxay ku shaqeeyaan HTML macnaha HTML bay fahmaan haddii website-kaada uusan HTML ahayn maba garan karaanba marka technically muhiimadda waxa weeye every single website oo caalamka saaran basekiisu waa HTML laakiin markaasaa waxyaabihii kale oo aan maaragtay ka sheekeynayna halka hore dhaca ayaa lagu sii dardarayaa de markaas website-ka wuxuu noqonayaa wax weyn oo markaa cajiiba marka HTML-ka isaga waxaa lagu dhisaa structure-kii website-ka example website-yada arkaysaan wax weyn ma ahan waxa weeye waa sida tan waa table-ka yarka ah oo la qaabeeyey weeye oo keliya marka hadda u fiirso table-kaas oo la kala jaray waa hal table saas loo jaray kadibna saa loo xiray xaggaana markaa la saarsaarayo wararka qaybtood xaggaana waxba ku jira xaggaana menu iyo waxyaabo kale ku jira xaggaana contentiga caadiga ku jirta xaggaana footer baa ku jira iyo wax kale website-ka arkaysidba waa table-kaas oo inta la jarjaray baa markaa kadibna waa table caadi ah ama shax caadi ah ayaa waxaa laga dhigay waxaan macnaha sida u quruxda badan ama ka duwan waa hagaag insha allah marka sidoo kale koorsatan marka aad dhamaysid waxaa awood u heli doontaa inaad awood u yeelatid inaad project yar oo aad samayn kartid oo website yar oo html ku samaysan inkastoo waxyaabihii kale ka maqan yahay laakiin haddana technically mid html ku samaysan insha allah inaad samayn kartid marka html-ku waxaa lagu sameeyaa structure-ka ayaa lagu sameeyaa html marka hypertext refers to the way in which web pages are linked together hypertext wax kale kama dhigna waxa weeye inay sharaxdo qaabka uu isugu xidhan yahay web page-da macnaha muhiimadda waa maxay website marka la samaynayo website-ku wuxuu ka samaysan yahay pages badan hadda halkaas oo kale waxa laga yaabaa home baa ku taal halkaas oo kale waxa laga yaabaa about us inay ku taal halkaas waxa laga yaabaa contact us inay ku taal midka arkaysa marka lagu dhufto bog kale marka adiga ma dareemayso qofka caadiga ah walaal inuu dareemin halkan qofka website developer-ka page buu diyaarinaya la yiraahdo contact us page kala diyaarinaysa la yiraahdo about us page kala diyaarinaysa oo maaragtay surfaces ama home ah dhamaantood marka fiiri halkaas ku xiraysa marka about us qof markuu ku dhufto page kan kale ayaa u furmaya contact us markuu ku dhufto qofka automatically waxa u furmaya maxay page kaas ayaa u furmaya sidaas u shaqeysaa marka xigmadda website-ku qaabkaas u shaqeeya waa hagaag sidaas daraaddeed marka web pageska ayaa markaa saas waxa loogu diyaarshay loogu bixiyay hypertext so sida magacu idin suggest garaynaya ama idin soo jeedinayo html is a markup language which means you use html to simply mark up a text document with text to tell a web browser how to structure it to display marka xigmaddu waa maxay nidaamkan markup-kan language-ka waxay diyaarinaysaa qaab dhismeedkii html-ka ama website-ka sidaas darteedna waxaa fahmaya browserska kala duwan ee caalamka ka jira waan hadda ka sheekeynayna intaas marka waxaa inooga eeg overview-ga marka waxaa inoogu xigta qaybtan kale oo ah inaynu ka hadalno bal xageeba originally ka yimid html-ka so html originally was developed with the intent of defining the structure of the documents like heading paragraphs lists and so far marka waxaa qaabka loo diyaarshay ama html-ka marka ugu horeysayba qaabka loogu talagalay wuxuu ahaa marka hore in maxaa reeyay ujeedka html-ka loo diyaarshay wuxuu ahaa in lagu sameeyo structure-ka documentiga oo markaana documentiga headingskii waa maxay ciwaankii weynaa h1 h weyn h yar headingskii kala duwanaa paragraphyadii la isticmaalay qoraalkan meesha ku qoran kala laba paragraph kala weyn listisyadii iyo waxyaabaha la midka inuu fudud gareeyo si macnaha loo share gareeyo scientific information between researchers dad researchers kala duwan ayaa waxay rabeen inay markaa share gareeyaan information-kooda ujeedka dhan marka html-ka marka hore saas loo sameeyay
laakiin hadda HTML is used to format web pages hadda laakiin website-yada ayuu ujeedkiisu noqday with the help of different tags available in HTML. HTML marka wuxuu ku shaqeeyaa xigmadan yarta ah oo ah tags. Tag furmay, tag xidhmay. waa sidaas tagiskaas uu ku shaqeeyaa waa hagaag qaybtan waxaan ku fahmi doonaa insha Allah structure-ka inaynu ku fahanno HTML-ku si uu dhisan yahay marka sidoo kale waxaan kala dardaarmayaa casharada waxa laga yaabaa markaan duubayo inaan maxaa yiraahdaa ama boobsiis u aqrino ama isla markaba sharaxno oo ka baxno marka adigu haysdiin casharka maxaa loo boobsiyay adiga casharka adaa control kara waxa haysataa videogii muuqaalkii baad haysataa waa istaajisanaysaa meesha artaa ku calinaysaa oo ku soo noqonaysaa afar jeer baa ku cashan kartaa kadib markaa fahantid ayaa casharka xiga u gudbaysaa laakiin adigu ha iskhiyaanin ha u gudbin casharkii labaad adigoo oonan diyaarin ama si wanaagsan u fahmin kii hore HTML-ku marka structure-kiisu waa sida tan kuwan hay xisaabsan kuwan marka waa iska calaamado aan wax kugu xisaabinayay laakiin halkan ay sheekadu inooga bilaabanaysaa HTML marka la qoraayo ama HTML ka la qoraayo xagee horta lagu qoraa kana waa code-kii kan waa code-kii HTML-ka sideeda waxa kugu filan inaad isticmaashid notepad-ka oo maaragtay wuxuu ku jiraa Windows walba uu la socdaa computer walba Windows uu la socdaa sidoo kale waxaa jira notepad++ oo runtii ah mid aad u fiican oo aynu isticmaali doono insha Allah isagana waad la degi doontaa halka resources-ka ah ayaad maartay kala degi doontaa koorsada meesha resources-ka ku dhahaysa ayaad maartay insha Allah kala degi doontaa hadii ay baydno waa hagaag marka notepad-kaas lagu qorayaa waa la save gareynayaa kadibna code-kii caadi buu run gareysmaa insha Allah halkaas ku practice gareyn doontaa hadii la yiraahdo laakiin hadhow mustaqbalka notepad-kaas code-ka lagu qorayo iyo waxyaabo badan baa la isku xirayaa iyo SQL iyo database-ka iyo waxyaabo badan baa la isku xiri doonaa marka HTML-ku qaabkan u dhisan yahay markii la diyaarinayo HTML ama la qoraayo ama code-kiisaan u diyaarsan yahay marka koowaad waxa la qoraa HTML doctype HTML doctype maxay ka dhigan tahay inay sheegto version-ka ama nooca uu yahay HTML-ku HTML noocyo badan soo maray HTML5 baa jira 4 baa jira saas oo kale marka HTML-ka nooc uu yahay inay sheegto calaamadan sa aragtid halkaan ay ka furan tahay taggan waxa la yiraahdaa HTML taggan waa tagga HTML-ka lagu bilaabayaba halkaan hadhow waa ka soo xiraynaa hadaa u fiirsatid xiridu waa markii slash-ka ayarta uu raacsan yahay markii hore slash-ka ayarka ama raacsanayn hadii sheekada sidaan ay noqoto taggu waa mid xiran hadii taggu sidaan ay noqoto oo halkaan taggi ku jirto waa mid furan halkaana waa xiritaankii marka sa aragtaan HTML-ka halka aan ka furnay meesha ugu shaysa baan ku soo xiraynaa kadib HTML-ka waxa muhiim ah inaynu furno head-ka waa meesha lagu qoro title-ka documentiga iyo wixii la mid ah ayaa lagu qoraa ama macnaha website-ka aad qoraysid sameynaysid title-kiisa lagu qoraa hadda website walba aad booqatid waxa arkaysaa halka ugu shishaysa hadda xirfadcap.com marka booqatid ama sahlum.com booqatid waxa arkaysaa xagga ugu sareysa in ku qoran tahay magacii inuu ku qoran yahay iyada arkaysaa saas oo kale marka halkan waa title-ka marka title-ka magacaas qoro weeye aad aragtay insha Allah practical kan ku arki doonaa soo halka waxa aragtaa this document title-kii ayaad aragtaa taggan title-ka ayaa la furaa la xiraa kadibna head baan ku soo xirnaa headka sidoo kale mustaqbalka waxa la geliyaa styliska ayaa la geliyaa iyadana marka oo CSS-ka looga faa'iideystaa kadib waxa inoo furan body baa inoo furan bodygan oo meesha shaqada oo dhan lagu qabto bodygaas soo fur ilaa inta laga xirayo hada waxaan aad u yar yahay oo laba sadar kaliya noogu qoran koorara laakiin sometimes bodyga markii la furo iyo inta la xiro waxa laga yaabaa in 4 page uu noqdo website-kaadu oo maartay dhexda ku jira bodyga marka bodygeena anoo wax badan ba kuma noqorin waxaan ku qornay this is hidden waa maxay h1 iyo h macnaha header waaweyn bay nooga dhigaysaa ama far waaweyn ama ciwaan buu nooga dhigayaa h1 tan iyo h1 tan aan xidhnay ciwaano waaweyn bay noo sameynayaan kadibna paragraph oo ah qoraalkan dhowr sadar buu noqon karaa bida un baa ku soo xiraysaa hadii la yiraahdo waa hagaag bida un baad ku soo xidhay oo sidaan weeye bidu markay xiran tahay kadibna waa sidaan kadibna sanaad u xidhay marka bidaas un baad intuu roodo 5 sadar 10 sadar buu qaadan karaa ayadaa ku habeynaysa
kadibna waxaan xidhnay paragraph body waan xidhnay html-ki baan xidhnay muhiimaddu waa maxay taag walbo la furo meel laga xiro ayay yeelanaysaa taa way farsamada ay tahay inaad fahantid marka haddaa aragtid natiijada inoo soo baxday website-kii hadda koorka yarka ahaa ayaan qornay halkan waa aragtaa marka halka waxaanu ka dhignay title-kii ayaynu marka this is xirfad kaab ayaanu maaragtay ku qornay website-ka hadda soo sheegtay website-kan marka hadda wuxuu yaalaa iska desktop-kaygu yaalaa laakiin mustaqbalka website-ku waxaanu dhigi doonaa meel habaysan oo sida website ahaan caadi ah loo kicin karo halkanna waa aragtaa waa h1t qoraalkii h1ta ay ka horreysay kana dambeysay ayaa sida tan noqday halkanna waxaa aragtaa qoraalkii caadiga ahaa inuu noogu qoran yahay sidaas ayaa waxaa inoogu soo baxday natiijadii koodhkii aan qornay sidaasuu natiijadiisu noqday markaad save garanaysid koodhkii aad qortay waxaa u save garanaysaa html magac baa u bixisay example test oo kale u bixisay yaa test baa u bixisay ka soo qaad marka waxaa u save garanaysaa test.html saas u save garanaysaa insha Allah markaana natiijadaas ayaa kusoo bixi doonta haddii ay biiraado إن شاء الله waxaan qaybtan ku arki doonaa waxa loo yaqaano HTML tags marka taagaga kala duwan ee HTML ku shaqeeyo sidaan hore idin kugu soo sharaxay HTML ku waxa uu ku dhisan yahay waa tags tag saasoo kale marka u samaysan tahay tag waxa macnaha u samaynayo dhanba HTML ku waa tag haddaynu rabno qoraalka inaan weynaysiino example waxa laga yaabaa inaan ka hormarino tag la yiraahdo strong taagaasoo kale laga inaan ka hormarino kadibna qoraal qorno qoraalkaasi marka wuxuu noqon doonaa qoraal waaweyn buu noqonayaa qoraal waaweyn ayuu noqonayaa haddii ilaahay yiraahdo hadda marka strongigii un baan maartay ku soo xiraynaa saasa loo soo xirayaa strong baan leenahay waa hagaag kadibna maxaynu samaynay sidaas ayaynu u soo xidhnay waa hagaag marka HTML ku waxa uu ku shaqeeyo dhanba waxa website-ku dhan ku dhex jiro waa wada tags kaas ku shaqeeya so HTML is a markup language and makes a use of various tags to format the content so xogta format u sameeyo format tirtirid ma aha ya format waa maxay farti in la naqshadeeyo format yiraahdaa taas u faham marka content-giisu u format gareeyo ayuu marka uu maxaa la yiraahdaa uu isticmaalaa tags kala duwan marka taagii kii casharkii ugu horreeyay markii aanu arkaynay oo sida doc type iyo HTML iyo waa tags hadda waaratan doc type taggan waxay HTML ku sheegaysaa inuu aqristo versionka HTML ku yahay taggan HTML ki inuu furmay ayay u sheegaysaa taggan waxa weeye waa header-ki meesha inuu furmay ayay sheegaysaa header-ka waxa lagu qoraa title-ka website-ka iyo waxyaabaha la midka ah iyo sidoo kale wax walba oo external links oo lagu soo xirayo website-ka ayaa head-ka looga soo xiraa waxa kale oo jirta body waxa weeye waa halka maxaa la yiraahdaa website-ko dhanba xogtiisa hadhow ay geli doonto oo body-gaas marka la furo oo la wadwado ilaa waxa laga laba page haduu rabo inuu qaato kadibna maxaa la yiraahdaa hadhow la soo xiro waa halka ugu dambaysa laga soo xiro tag walba oo furma inta badan wuxuu leeyahay mid xiraya laakiin kuwa waxaa jira la yiraahdo self closing tags iyagu isxira ayaa jira tana waa arkaysaan waa h1t aynu aragnay iyaduna waa tagaasi qoraalka hadii laga hormariyo oo kadibna iyada lagu soo xiro yacni qoraalkii automatically wuxuu noqonayaa hadii ilaahay yiraahdo wuxuu noqonayaa far maxaa la yiraahdaa capital waaweyn buu noqonayaa header waaweyn buu noqonayaa paragraph-ta bida ah saas weey inta badan laakiin waa maxay the best way waa maxay markaad qoraysid code-ka HTML-ka ah waxa wanaagsan inaad small cap ka dhigtid use small cap always small cap isticmaal far yar isticmaal ya far yar isticmaal ay isticmaaleen far waaweyn insha Allah si marka aysan wareer kuugu imaan insha Allah marka HTML tags-ka waxaan rajaynayaa inaad fahantay sidaas u socon doona concept-ga haddaa fahantid iyo system-ku si u diyaarsan yahay adiga socon kara inta rabtid baad socon kartaa inkastoo insha Allah waan casharada sii wadi doonaa hadii la yiraahdo ayaa haddana concept-ga muhiimadu waa maxay haddaa nidaamka fahantid hadba tag ba kugu cusbanaanaya haddaa example table u baahan tahay inaad dhistid tagga table-ka u baahan tahay haddaa u baahan tahay image inaad soo gelisid website-kaada tagga image-ka u baahan tahay marka insha Allah hadii ilaahay yiraahdo qaybahaas oo dhan waynu arki doonaa project yar oo hadhowna insha Allah HTML-na waa samayn doonaa aad ayaad u salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا وإذن سلامي سلام كدب إن شاء الله أما مانتا وحين أركي دورنا هدي إله يرادو بروجكتيga ugu horeeyay ama waxaanu marka koowaad si fiican u arki doonaa inaan practicalki toos u dhex galno ayaynu insha Allah ka bilaabaynaa hadii Ilaah yiraahdo marka intayna practicalki rasmiga ahaa ayna toos u galin waxaan isku dayaynaa insha Allah inaynu bal website yar oo samaysan oo HTML ku samaysan aanu insha Allah sharaxno oo kadibna fahanno halka wixii ka dambeeyana aan bilowno inaan anagu fast web aanu samayno ama webkeena ugu horeeyay waxaanu kicinaynaa midkan oo example domain example domain haddaad aragtaan webka kan qaabkan ayuu u diyaarsan yahay example domain kadibna waa domain yar oo iska samaysan halkaa waa aragtaan waxay noo soo baxaya title-kii xirfad kaab ayaa noo soo baxaysa kadibna halkan waxay noogu qoran xoogaa qoraal ah ayaa inoogu qoran iska example website-kan wax badan information badan kuma jirto more information halkana linki baa ku jira oo haddii aan ku dhufano markaa linki ina geynaya halkanna waxaa inoogu jira paragraph yar oo kooban website-kan si u samaysan yahay hadda waxaan wax ku furnay waa Mozilla ama Google Chrome ku furnay hadda artu website-ka ina fiirisid isla halkan ku fiirin kartaa right click inta dhahdid view a page a source ayaad dhihi kartaa markaas aad dhahdid waxaad arkaysaa markaba webkii ayaad arkaysaa markaba oo code-kiisii iyo system-kiisii oo ku furan ayaad arkaysaa marka insha Allah waxaynu isku daynaa bal inaynu wax ka sharaxno sida aragtaan marka koobaad waxa inoo samaysan halkan waxa ku samaysan doc type-kii ayaa ku samaysan waxa kale oo ku samaysan waxyaabo kale marka waxaan isku daynaa bal inaynu notepad ku furno oo sidaan maadaama xoogaa aan ka baqayo in xoogaa aragu idinku yaraado waxaynu ku furaynaa notepad-ka ayaan ku furaynaa isla website-kii marna Mozilla marna waxa ku furaysaa Google Chrome ama Mozilla hadba ka jeceshay marka aad inaad wax ka bedeshid notepad ayaad ku furaysaa marka anu hadda waxaan isticmaalayaa notepad plus ayaan isticmaalayaa oo software yar oo lagu shubto waana insi doona insha Allah hadii la yiraahdo software-kan yarka notepad plus wuxuu idinku jiraa meesha resources-ka halkaas aad kala dhigi kartaan automatically marka ku shubaysid waxba uma baahna inaad click dhahdid nagasi I accept finish inta uu ka raba waxba kaama raba double click-kaas inaad dhahdid uu ka raba marka hadda waxaan rajaynayaa website-ka si fiican inuu noogu soo baxay code-kiisii website-kana waa aragtaa title-kii waxaanu ku furnay doc type sidii caadiga ahayd HTML baan furnay kadibna dhammaan waxaan furnaa gadaal baan ka xiri doonaa waxaanu furnay title-kii title baan ku furnay title baan ku xidhay halka waa title-kii website-ka markaynu website-ka soo furnay waad aragtaa in halkaas ay noogu soo baxday halkan soo fur in xirfad kaab ay ku soo baxday waa aragtaa halka title-kaas wuxuu ka yimid title-kaas ayuu ka yimid marka wax walba oo website walba halkaas waxa ku qormaya title-kiisi Sahal University xirfadka waxa artid ayuu noqonayaa waa hagaag halkan tani waxa raada metadan waa metadata si uu si fiican browser-ku u aqrin karo ayaa loogu isticmaalaa metadan sidoo kale xitaa waxay sheegaysaa device-ka inuu maaragtay device walba lagu furayo uu isla ekaysiin karo oo isku dayayaa wax u dhigmo oo kale isku dayayaa marka kadib waxaan furnay body-ga marka hadda waa aragtaan waxay noo samaysan background-kii oo color kadib aan isticmaalnay calaamadda hash la isticmaalaa colorada da 00 dhahdid waa hexadecimal soo waxay isticmaali kartaa ff00 maxariyada saas oo kale marka ayaad isticmaali kartaa insha Allah iyo waxyaabo kale gadisan color walba sibuu waxba ku soo baxaadba color ku soo baxay margin-kii font family-gii kadibna waxay noo samaysan def waa maxay waa sida row camal oo kale row oo kale weeye marka rowgii iyo width-kiisii iyo padding-kiisii wixii soo dhan ba halkan lagu sameeyay linkigii oo website-ka marka la booqdo iyo markaan la booqan siduu isu bedbedelayo soo soco intaas oo dhan style bay ku dhex jireen dhammaan intaan oo dhan maxay ku dhex jireen intaas oo dhan waxay ku dhex jireen style bay ku dhex jireen waxaan marka body caadi ah maaha waa CSS-kii weeye CSS-ku waa maxay waa wax format garaynaya farta iyo structure-ka iyo naqshadda weeye asagu naqshadda iyo sidoo u ekaanaya style-ka website-ka ayuu wax ka bedelaa CSS-ku marka soo raac kadibna head-ka ayaanu ku dhex furnay mataan mar hore ka sheekeeyay oo ay head-ka dhexdiisa ayaa inta badan waxa la gashtaa styleska iyo wixii la midka ah halkaas ay galaan programkii marka body-ga halkaas inoo furan body-ga hadduu halkaa inoo furan yahay kadibna example waxaanu qoranay h1 taa xiranay kadibna waxaanu ku qoranay domain-keeni magaciisi example domain kadibna qoraal paragraph kadibna linki inoo muujinaya linkiga markaanu booqano maxaa dhacaya hadda waa bulug markaan booqano okay soo noqo waa soo noqday marka la booqdo okay xoogaa internet hadda igu xirnay laakiin markaan booqdo
colorku wuu isbedelayaa marka xigmadda waxa weeye adiga muhiim ah inaad kan ku wareertid laakiin inaad fahantid nidaamka weeye bay muhiimad u tahay insha allah step by step baan u sameynaynaa mid walba iyo meesha marka uu marayo ayaynu insha allah haddii ilaah yiraahdo aynu sameynaynaa waa hagaag marka waa aragtaa waxaynu xirnay defti baan furnay waa xirnay deftan row bay u dhigmataa hal row ayay u dhigmataa waa hagaag body baan furnay bodygii baan kadibna xirnay iyo html-kii bodyga halkaasaan kasoo furnay html-kan halkaas shisha ayaan kasoo furnay marka technically structure ahaan qaabkaas ayuu u samaysan yahay markii webku qaabkaas u samaysan yahay hadhow marka saas u badnaan doonaa insha allah haddii ilaa yiraahdo casharkan haddii ilaah yiraahdo waxaynu ku arki doonaa inaynu samaysano webkii ugu horreeyay ama example of web marka hore mid baynu sharaxnay samaysan laakiin hadda inaka samaysan doonaa haddii ilaah yiraahdo waxyaabaha muhiimka inaad fahanti waa maxay waxaad u baahan tahay softwarekan la yiraahdo node plus plus ayaad u baahan tahay waa marka koowaad marka labaadna waxaad u baahan tahay example haddaad rabtid inaad website-yada samaysid example-ka hadda kuma qasbanid casharada html-ka desktop-ka ku save garaysan kartaa desktop-kaada ka samaysan kartaa hawsha laakiin haddaad rabtid waxaad samaynayso inuu website rasmi ah noqdo waa ku qasbanta inaad example isticmaashid example wuxuu ku samaynayaa example keligiis ma aha one server baa jira example baa jira wuxuu ku samaysmaray apache iyo maxaa yiraahdaa iyo php iyo sql ki wixii oo dhan buu ku haynayaa examkan aad arkaysid yacni examkan softwarekan yarkaa wax weyn kugu qaban maayo computerkaadii ayuu wax ka dhigayaa local server therefore website-kii ayaa lagu host garayn karaa website-yada arkaysid oo online ku host garaysan website kale ayay ku jiraan oo ku shuban yihiin waxay ku shuban yihiin computer ama server online ah ayay ku shuban yihiin serverka online-ka markay ku shubmaan kadib adduunka o dhan ayaa laga access garayn karaa sidaas oo kale computerkaada caadiga ayaa server ka dhigi kartaa haddaa exam ku shubatid ama examkan ama wambi labadaba waa isla meeshii kadibna wuxuu awood kugu samaynayaa in computerkaadu uu noqdo server laakiin waa local oo network-gaada localka ah iyo adigaaba arki kara haddii mustaqbalka u baahan tahay in adduunka laga arko website-kaada waxaa u baahan tahay website-kaada inaad copyeysatid oo kadibna aad geysid meesha online-ka ahayd serverka online-ka aad dhigtid ayaad u baahan tahay marka adoona waxaas o dhan isku wareerin waxaa muhiimad u tahay un examkan inaad isbartid inaad iska isticmaashid intaad maaragtay aad kuliyaddan ama xirfaddan aad meel fiican ka gaaraysid inaad isku dayid inaad barbaratid si ay markaa hadhow website rasmi ah u samayn kartid laakiin haddaadan isticmaalin xoogaa waxaa kugu adkaanaysa inaad website rasmi ah aad samaysid hadhow waayo html-ka keligiis html haddaad desktop dhigtid desktopka database-ka si ugu xiraysaa marka isa sii bar softwarekan sidoo kale resources ay kala degaysaan nagasi finish sidaas umaad ku wadaysaan so hadda waxaan bilaabayaa start apache baan bilaabayaa waxaan sidoo kale bilaabayaa mysql ayaan start garaynaya labadaasaan marka start garaynayna insha allah okay intuu start garooyo waa ka tegaynaa marka waxaa muhiim ah inaynu markaa soo furno sida meesha lagu shaqaysanayo waa halkan markaa ku shubtid nagasi finish dhahdid oo start garaysid halkan wey meesha lagu shaqaysanayo exam kadibna waxaa xagga website-kaada waxaa gelinaysaa htdocs so website-keena hadda waxaan u bixinaynaa xirfadcab lab ayaan u bixinaynaa so halkaas ku shaqaysanaynaa halkaa website caadi ay noqonaysaa okay hadda marka aan fiirino inuu soo kacay examkii hadda waa aragtaan boardsku waa up waa green xaaladdu marka waa okay bay ka dhigan tahay haddii saas ay tahay waa hagaag waa iska xiraynaa marka wuu inoo daaran yahay haddaa fiirisid inuu kuu shaqaynayo in kale maxaa ku ogaanaysaa halkaana tegaysaa kadibna waxaad ku qoraysaa maxay local host ayaad ku qoraysaa haddii uu kuu soo baxo sidaa kugu soo baxo apache uu kuu aqriyo oo examkii saa kugu soo wejiga ama wajahadaas kuu soo saaro xaaladdu waa okay ka dhiganta laakiin hadduu sidaa kuu soo saari waayo waxbaa kaa qaldan okay marka hadda waxaan isku dayaynaa inaynu booqano website-keena yarka aan samaysanay oo ahaa xirfadcab lab so hadda xirfadcab lab baan galay waxba kuma jiraan okay hadda saa u aragtid meesha qaabka u galayna website-ka haddaa fiirisid url-kiisa localhost ay ku qoran localhostigan 127 waa laga dhigi karaa 127.0.0.1 waa laga dhigi karaa iyadana waa lagu geli karaa saa aragtid marka hadda u fiirso xikmaddu waa maxay website caadi ah marka wixii noqonayo
hadhow waxaa gelinaysaa serverkaada online-ka IP-giisa halkaa gelaya sidaasaa website-yada adduunka lagu soo galaa iyo DNS-ka oo magacii u bedela IP-ga u bedela magac u bedela IP-gii ayuu magac u bedelaya DNS-ku ay taas shaqadiisu u tahay muhiimadda waxa weeye in IP-na lagu soo geli karo website-kaada magacna lagu geli karo marka magacu muxuu noqonayaa local host hadda laakiin mustaqbalka ka website ballaaran samaysid oo shirkad ama wax lamid ah u kicisid yani halkaas waa isbedelaysaa oo waxay noqonaysaa www.xirfadkaab.com oo kale masahal un.com taasoo kale ayuu noqonayaa marka hadda website-keena waxba kuma jiraan marka waxaan isku dayaynaa inaynu maxay programkeeni ugu horreeyay aynu abuurano marka waxaan samaysanaynaa kii hore inoo qornaa wax yar baynu ka qaadanaynaa kan waynu qaadanaynaa iska xiraynaa halkan aan tegaynaa new baan leenahay halkan tagasti dheh kadibna waxaan u bixinaynaa keeni ugu horreeyay website-keeni ugu horreeyay hello world baan leenahay hello world baan bixin halkan .txt ga waa bedelaynaa .html ayaan leenahay yes baan leedahay isku day inay halkan kuu saxan tahay sometimes waxaa jirta view file name extension ka hadduusan kuu saarnayn oo file name extension tig kuu saarnayn oo aad wacdi .html la qoray .html na waa dooratay laakiin txt waa kuusii raacaysa gadaal marka arrintaas iska xaqiiji in maaragtay html kaliya halkan ay tahay ya waa hagaag marka hadda website-keena waxba kuma qorna node-ka ayaan tegaynaa haddii ilaah yiraahdo waxaynu markaa isku dayaynaa inaynu ku koobiyeysanno koodhkan wadanay koodhkan marka waxaan oo dhan baa iska tirtiraynaa oo aan loo baahnayn stylekan oo dhan looma baahna qoraalkan dhexe looma baahna iyo deftan website-keena waa kaa intaasaan u baahanna sida website basic markaad inaad bilowdid inta structure-kaas oo u baahan tahay inta waynu qori karnaa haddaynu rabno haddii kalena waxba macnaha kuma fadhido inaynu markaa qorno waxa kale unbaa muhiima nidaamka structure-ka inaad fahantid weeye kadibna aad shaqadaada qabsan kartid waayo intaan waa inta basic-ka ah marka waa maxay doc type-kii oo nooca version-ka html ku yahay html-ka inaan soo furano html-ka aan soo furnay si aragtid halkaas aan ka xiranay waxaanu furanay head-ka halkaas aan ka xiranay head-ka sa aragtaan method-ii iyo title-kii ayaa ku jira title-kii website-keena marka hadda haddaynu save garayno oo inteenan hadda save dhahno refresh haddaynu halkan dhahno waxaynu helaynaa hello world baa noogu jira meesha haddaanu furno waxba ku arki mayno keliya title-ka unbaa isbedelay oo ah xirfad kaab maxaa marka isbedela haysaan waagi hore halkan markaynu kicinayno si desktop waxaas user aasoo kala soo baxaysay laakiin hadda ma aha website caadi oo diyaarsan qaabkii caadiga u diyaarsan wax badan kuma qorna laakiin website caadi oo diyaarsan marka waana .html sa aragtid waa hagaag marka waxaynu ku qoraynaa marka qoraalkeena ugu horreeyay waxaynu leenahay waxaynu ku qoraynaa hello world yes hello world waxaynu ka hormarin karnaa haddaynu rabno saas hello world waa dhihi karnaa kadibna refresh dhe hello world ma soo baxaysa laakiin haddaynu rabno ht inaan ka hormarino ht baan ka hormarin karnaa h1 kadibna waxaynu soo xiri karnaa h1 kadibna save dheh kadibna waxaa dhahdaa refresh so waxaanu hadda qabanay saasan waxaan ku qabanay maxay website-keeni ugu horreeyay iyo shaqadeeni ugu horreysay ayaynu markaa aanu ku bilownay sidaas aad ayaad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu